in qof walaalka oo qoraxda ku istaago waa mudnaan gaara waa idinkaga mahad celinaya waana idin ogahay kow labo waxaan rabaa inaan idin sheego halkaan u imid inaan mar kale idinku matalo baarlamaanka federaalka Soomaaliya kursiga nambarkiisu yahay hoob 69 markii la asteeyay la yiri doorasha waxa lagu qaban doonaa laba magaalo ee Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo lagu doortay Galmudug reer Gaalkacyo dhan oo isoo waceen oo yiraahdeen kursigaagu mudug buu yaalaa garashadaas aad ii garateen waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego magaalada Gaalkacyo iyo aniga sida uu gudoomiyuhu sheegay xiriir dheer baan leenahay Gaalkacyo nabadeeda qayb weyn baan ku lahaa waa ilaahay mahadiis isu socodka iyo nolosha Gaalkacyo ka jirta heshiisyadii lagu saxiixay goobjoog baan ka ahaa 2015kii intaan Garowe gaari ka soo raacaan imid magaalada iyadoo laga kala qaxay yaan kaligay habeenkaas soo galay waxaan seexday meel markaas qad ahaa oo u dhaxeeyay magaalada aniga iyo taliyihii ciidanka waqtigaas General Buud waxaan u imaanaya waxay ahayd inaan dhiigga dadka walaalaha badbaadiyo inaan magaalada badbaadiyo inaan idin hiiliyo hooyooyinka iyo ilmaha qaxayaan u hiiliyo markaas wixii laga bilaabo ilaa haddana xiriirkeena aniga ee Gaalkacyo aad buu u sareeyay dabcan xiriirkaas xiriirkii horeeyay oo tacliimeed baan la lahaa halkan 2014 waxa la iigu soo diray anoo madax ka ah ururka jaamacadaha inaan soo qiimeeyo kuna daro jaamacadda Gaalkacyo University waxa marqaati ka ah Professor Shirwa iyo dagaatirada kale oo joogta jaamacadda gudoomiyuhu goobjoog buu ka ahaa waxaan rabaa inaan markaan uga gudbo aniga ee Gaalkacyo waxa naga dhaxeeya wax la soo koobi karo ma aha inaan idin sheego magaaladan Gaalkacyo dadka matalaya waa magaalo gobeed inay magaalo gobeed tahay waxa ku ogaanaysaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan Gaalkacyo ku kaftanta nin reer Gaalkacyo baa asaasi sideedana nin kaftan u dul qaadan kara hadaad aragto waa nin goba shantii sano la soo dhaafay baarlamaanka anoo mucaarad weyn ah haddana kaftanka iyo gobonimada ka baanan tagin nidaamka dalka jooga markaan tusaaleynay anoo qoslayaan tusaaleyn jiray sababtuna waxa weeye intaas reer mudugnimada iskale shaqada iyo xanaaqa waa in la kala saaraa dalka badbaadintiisu waa shaqo noo taala waa mas'uuliyad mana aha xanaaqna kuma dheefna qofna looguma dan laha qofna looguma daraanayo qofna looguma roonaanayo kursiga nuucaasa ee mudug yaalla ee Gaalkacyo yaalla waxaa astaahila waa kursi dad gobeed lagu matalo waa inaad gobonnimo leedahay ruuxdaadu ay gobonnimo leedahay waxaan rabaa 5 sano la soo dhaafay waa ka warhaysaan maalintii qalooca nidaamka aan arkay ilaa caawa inta ka dhaxaysa waxaan sheegay hooga tusaaleynay waxa la wadaa inay qaldan yihiin anoon ka dhigaynin inaan qof u dan leeyahay laakiin sideedaba waxa qaldan mar walba waa qaldan yihiin hadduu uu yahay qofka samaynaya walaalka iyo hadduu yahay qof shisheeyaba walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu icdiluu ilaahay yidhi inaad hiil iyo garab iyo siisaan darteed howgu hiilina gardarro ee mar walba cadaalad fala walaalayaal kursiga aan ku fadhiyo kursi gaaban oo aan la aqoon ma kursi dheer oo dalka Soomaaliya talaabooyin waaweyn ka soo qabta weeye oo qadiyado waaweyn oo adinka damirkiina taabanayana lagu difaacay kuwa aad xasuusataan iyo kuwa aad ma xasuusanba qadiyadii qalbi dhagax markii laga soo bilaabo oo aan ku soo qatimo qadiyadii extensionka lagu diiday intaas inta ka dhaxayda waxaan u taagnaa xaqa gartaan u taagnaa xumaanna igama ahayn intaas in badan oo u dhaxaysa jira arrimihii bariirka ka dhacay jiray oo dadana naga xilbaan u nahay lagu laayay jawaari wixii lagu la kacaa ahaa gardarooyin aad u tiro badan oo aan maalin walba u soo taagnayn ba aha waxaan isleeyahay waa la gaaray waqtigii
dadkaaga iyo tolkaagu ay kugu abaalgudi lahaayeen inay kursiga asagoo fudud ku soo siiyaan haddii ilaahay yidhaahdo kursiga sidaas aan idiin sheegay 69 ee aan ku matelo bariga mudug ilaa hobyo sidoo sheegay gudoomiyuhu ximbar waaqo meesha la yiraahdo ceelhuur ilaa baxdo wisil ilaa aad ka gaarto dhulkaas guud ahaan aan ku matelo deegaanka galmudug oo ku mateli doono magaalada gaalkacyo ciwaanka aan xiran doonaa waa nin matelo gaalkacyo nin baa marka waxaan ku soo qatimayaa sheekadiga ila dheeraana nin baa waxa la yiri gaalkacyaa yaa dhakhtar loo geeyay marka waxa la yiri dhakhtarkii waa yara xanuunsanayo marka waxa la yiri waa in xaniyaha dhibka jira hal waa in laga bixiyaa meeshii aan ka imid laba xaniyood baa lagu joogi lahaa yiri hal lagu joogi marka baarlamaanka nin laba xaniyood inaa u dirsataan baan ku talinayaa waa mahadsantihiin waqti badan baan sheekaysan doonaa waxaan dee u imid inaan idin iraado waa aragtay garabkiinna iyo gaashaankiinna waa u baahanahay adinka iyo dhammaan kuwa kursiga hoose leh iyo intaan ku mateli doono